السلام عليكم وكحوم هاي صاحب هدي aad soo daawatay muuqaalka halkan kaaga muuqda muuqaalkan waxaan ku sheegnay moobile dhowr ah oo shirkadda soo saartay oo ay Samsung tahay ay sheegtay inay ka joojisay cusboonaysiinta moobeladaas ama qaybta software update-ka taa taleefanada u suura gelisa inay la jaan qaadaan application-nada cusub ama application-nada update-yada ay sameynayaan ballanteenu waxay ahayd inaad iska bedesho moobeladaas mid kamid ah hadii aad haysato balse hadii aadan wali iska bedelin saaxiibkaana aad u sheegin inuu iska bedelo maanta muuqaalkan waxaan kugu hayaa war farxad leh oo dhawaan ka soo baxay shirkadda Samsung ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta magacaygu waa halka aad naga daawanayso magaca ku qoran waa Engineer Ali Maamo channel-keenan kala duwan waxaan kaga hadalnaa xogaha iyo akhbaaraadka cusub ee tiknoolajiyada ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaalkeena maanta Samsung ayaa ku dhawaaqday cusboonaysiinta qaar kamid ah moobeladeeda 7 sano kuwa 3 sano kuwa kalena 4 sano tartanka ka dhaxeeya Google iyo Samsung oo ku loolamaya meelo kala duwan sida taleefanada casriga ah iyo aaladaha guryaha ee loo yaqaan smartiga mid kasta ayaa dadaal ugu jira inuu cadeeyo inay aaladaheedu sii jiri doonaan muddo sanado kadib laga bilaabo Galaxy S24 noocyadiisa kala duwan iyo dhammaan taleefanada ka dambeeyay ay soo saari doonto Samsung ayay sheegtay inay heli doonaan 7 sano oo cusboonaysiina maadaama hadda version-ka Android ku jira ama ay ku shaqeynayaan uu yahay Android 14 ay heli doonaan cusboonaysiintan Android-ka ah ilaa iyo 7 sano ilaa Android 20 ayadoo kaga jawaabaysa ballanqaadkii ay Google sameysay taa oo ah in ay dadka isticmaala taleefanka Pixel ay soo saartay shirkadda Google ay sidoo kale heli doonaan 7 sano oo Android update ah qaar kamid ah moobeladii ay horay u sheegtay inay ka joojisay update-ka ama soo saaritaanka update-ka ayay dib u shaacisay in ay dib u heli doonaan updates-ka ayna kamid yihiin taleefanada helaya updates-ka 3 sano qaarna ay kamid yihiin taleefanada heli doona 4 sano Samsung ayaa ballan qaaday 3 sano oo casriyeyn Android ah laga bilaabo taleefanadii soo baxay 2019ka iyo dhammaan aaladihii ka dambeeyay ayay sheegtay inay heli doonaan cusboonaysiin 3 sano ah noocyada kala duwan ee tablets-ka iyo sidoo kale taleefanada loo yaqaan foldable phones-ka oo ah taleefanada isku laalaama inay heli doonaan update 3 sano ah waxay kale sheegtay in ka badan 130 nooc oo ah aaladaha ay soo saarto shirkadda Samsung in ay heli doonaan updates 4 sano ah haddii taleefanka uu ka mid yahay taleefanadan aan soo sheegnay gaar ahaan taleefanada eega loo yaqaan waxaad mar kale ku guuleysatay in shirkadda Samsung taleefankaaga ay cusboonaysiintii u ogolaato ay hore uga joojisay siba taleefanada E54 E33 E24 E73 E33 dhammaan noocyadaas kala duwan ee waxay kamid ahaayeen taleefanadii update-ka laga laabtay oo aan muuqaalkan hore ugu soo sheegnay balse nasiib wanaag markan shirkadda ayaa update-kii ama cusboonaysiintii dib ugu ogolaatay si ay isaga xajiso ama isaga dhiciso tartamayaasha kula loolamaya suuqa waxaan rajeynayaa muuqaalkan wax uun xog ah inaad ka faa'iiday haddii aad ka heshay ama aad jeceshay muuqaalada caynkan oo kale inaan soo gudbino ku soo beer halka aad naga daawanayso haddii Facebook tahay haddii YouTube tahay iyo haddii TikTok tahay intaba mahadsanid